tobanka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada, magacayga waa Idriis Abaadir Cabdi. Waxa aan jeclaysto insha Allah inaan bilaabo taxane aan kusoo gudbin doono Facebooka iyo YouTube channelkeena. Dabeecadda qofka maaragtay raba inuu guuleysto, waxyaalaha looga baahan yahay ama dabeecadaha looga baahan yahay inuu sameeyo. Ilaa 10 ayaan ka hadli doonaa, waan qaybinayaa. Tan ugu hore caawo ayaan bilaabayaa insha Allah. Marka waxaan isku dayaa habeen walba inaan mid aan maaragtay duubo oo aan soo geliyo Facebooka. Marka 10kan shay haddii aad step by step u sameyso, insha Allah waxay mataqaanaa kugu hagaysaa inaad guuleysato noloshaada, mataqaanaa aad controlsho waxyaalo badanna mataqaanaa inaad aad barato. dabeecadda koowaad laga rabo inaad isbarto waa akhrinta buugaagta. waa inaad isbarto. Dadka inta badan waxay dhahaan waan akhrin karaa buug, laakiin ma sameeyaan. Ninka la yiraahdo Warren Buffett wuxuu sheegay inuu akhriyo maalintii 500 oo page. 500 oo page inuu maalintii akhriyo. waa taqaanaa ninkaas ciduu yahay. Bill Gates oo kale wuxuu yiri waxaan akhriyaa 50 buug sanadkii. Ninka la yiraahdo Elon Musk wuxuu yiri isagana markii la yiri xagee ka baratay in aad sameyso rocket loo diro hawada, wuxuu yiri jawaabtiisa very simple baheed, I read books. buugagtan akhriyaa buu yiri. Marka maxaad akhrinaysaa? Why do you read? sababtay u akhrinaysaa buugagta? buugagta la akhrinayo iyo ama akhriska sidiisaba laba u kala baxaa. midna waa entertainment weeyaan oo qofka mataqaanaa isku madadaaliyo, wax markaas uu jecel yahay ayuu mataqaanaa madadaal ahaan u akhriyaa. midna waa aqoon. marka midda entertainmentiga inta badan focuskeeda uu yar yahay, qofka markaas ayay xoogaa yar farxad gelinaysaa, laakiin uu ilaawayaa. laakiin midda laga rabo inaad u akhriso, sababta u akhrinaysa inay noqoto knowledge, aqoon inaad ka kororsato. buugga akhrinaysa ha ahaado buug adiga aqoon kuu soo kordhinayo oo maaragtay horey kuu wadayo ha ahaado. buugagta oo maaragtay dadka hadda successfulka ah ee akhriyaan waxaa kamid ah buugga la yiraahdo Rich Habits, The Daily Success Habit of Wealthy Individual. That's one of the amazing books. mataqaanaa oo qofka uu maaragtay haddii uu xooga saaro inuu akhriyo uu maaragtay waxyaalo badan ka faa'iidi karo. dadka tujaarta ah according to them sida noo sheegeen, ama dadka maskaxda furan smartka ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala xigmad iyo caqliga siiyey, horumarka adduunka badankiisna maaragtay sameeya, waxay akhriyaan buugagta self improvementiga, educationka, successka, sumagar kuwaas akhriyaan. dadka masaakiinta inta badan waxay akhriyaan buugagta entertainmentiga waxaa weeye dadka hoose ayaa buugagtooda iska akhristo. marka of course akhrinta waa very big deal. You have to read every single day. noloshaada waa inaad ku xirtaa akhrin subaxii iyo habeenkii, midka kuu fiican isku day. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay alasayda hore markay salaada tukadaan oo kale ay u fiican tahay. waxaa laga yaabaa dadka qaarna habeenkii markay seexanayaan inay u fiican tahay. laakiin mar walba gacantaada ayaan laga waayin buug markaas akhrinayso. isku day buugga inaad mataqaanaa dhamayso. isku day inaad buuggaas buug kale oo notebook aad haysato oo aad mataqaanaa ka qaadanayso aqoon. dabeecadaha qaar oo kale aad samayn karto waxaa bishii inaad 2 buug isku daydo inaad dhamayso. bil walbo haddaa ka dhigato dabeecad inaad 2 buug oo maaragtay ku saabsan self developmentiga, successka, improvementiga, mataqaanaa personal developmentiga, controlling your life, controlling your lifestyle, controlling your money, yani buug noocaas ku saabsan haddii aad isku daydo inaad bishii 2 buug aad akhriso, wax weyn baa kaaga siyaadayo. And then buugga ugu hore dabcan dadka qaar waxaa laga yaabaa sideen ku doortaa buugga aan rabo in akhriyo. whatever hadda shaqo aad haysato, meesha aad ku jirto, levelka aad ku jirto, haddaa nurse tahay, haddaa tahay mataqaanaa dhakhtar, haddaa tahay qof caadi oo personal development entrepreneur, haddaa tahay meesha hadda aad ku jirto, buug horta related ku bilaabo. kadibna waxaa ku xijisaa buugagta personal developmentiga iyo buugagta lacagta ka hadlo, investmentiga ka hadlo, successka ka hadlo, startupska ka hadlo, business managementiga ka hadlo, leadershipka buugagta ka hadlaan. buugagtaas oo dhan ku xiji. because buwaagtaas waa buwaag ay qoreen dad ku guuleystay mataqaanaa
level fiilyadaas ama mataqaanaa qaybtaas ay rabeen nolosha ay rabeen dad ku guuleystay weeyaan. marka qofka markuu meesha ku guuleystay waxaa ka horreysay guuldarro badan baa ka horreysay. marka guuldarrada badan iyo guushiisii oo ugu dambeysay ayuu qofkan kuu soo gudbinaya iyadoo sideeda ah. marka waxaad dareemaysaa buwaagta qaar markaa akhrinayso waad dareemaysaa qofkan dhibaatadii uu soo maray iyo meesha uu ku dambeeyey waxay tahay. marka that's why ay akhrinta mar walbo ay muhiim u tahay. marka sidee mataqaanaa akhrinta aad uga dhigi kartaa wax maalin walba aad samayso ama dabeecad joogto ah sidee uga dhigi kartaa? waxaa la yiraahdo waa practice. waa inaad ku celceliso, waa inaad isku khasabto. mararka qaar nafta waxaa laga yaabaa inay ku tiraahdo maya is okay, telefoonka fiiri, xagga samey, kan yeel. waa inaad isku khasabto adiga, waa inaad noloshaadii aad ka dhigto aad tiraahdo may waa inaan arrinkan dhameeyo, waa inaad tiraahdo. saddex shay baa samayn kartaa. saddexdan shay runta aniga aad bay i anficeen. kow horta reminder wax la yiraahdo, routine iyo reward. saddexdaas waa saddexda triple r-ka oo aadka maaragtay aniga personal iyo anfacay weeyaan. reminder waxaa weeye meel ku xasuusiso qolka. haddaa guriga aad degan tahay, qolka meesha sariirta aad ka seexato korkeeda ama meesha adiga aad jiifato ku qoro inaa mataqaanaa wax ku xasuusiyo buug inaad akhriso. routine ka dhigo oo maalin walba samey, maalmaha qaar ha gafin. kadibna markaa buuggaa dhameyso reward sameyso oo waxaad tirahdaa hal buuggaan dhameeyey, maanta fasax baan qaadanayaa, nafteydii mataqaanaa wax adiga ku farax geliyo oo mataqaanaa naftaada aad jecesha markaas samey oo of course xalaal ah. marka taas waxay kuu sahlaysaa inaad mataqaanaa maskaxdaadii aad barayso, waa tababaraysaa maskaxdaadii. tababarkaas ayaan mataqaanaa u baahannahay. marka guud ahaan haddii aan soo wada koobo recap baan ku sameynayaa. sida caadiga ah waxaan kasoo hadalnay you must be reading primarily learning knowledge, wax adiga ku anfacayo hore ku dhigayo oo aqoon ahaan ku xiran in akhriso. kuwa mataqaanaa stresska iyo depressionka inaa mataqaanaa buwaagta laga qaado, sida buwaagta entertainmentiga oo kale inaa mataqaanaa aadan akhrinin. inaa akhriso buwaagta mataqaanaa confidentiga iyo empathyga iyo decision makingka kugu taageeraya, kor u qaadaya ama kugu saacidaya mataqaanaa inaad sameyso. xilliyada ugu fiican la akhriyo gelinka hore subaxi ilaa gelinka dambe habeenkii intaa seexato. haddaba akhrinta oo maaragtay kuwa confidencega iyo empathyga iyo decision makingka waxaan ka wadaa kalsoonida iyo inaad go-aan haddii aad rabto mataqaanaa qof go-aanka ku adag yahay inuu qaato oo kale, waxa muddo ku qaato ka fikir oo kale haddaad tahay inaad buwaagtaas akhriso. marka haddii aad tahay xilliyada ugu fiican oo kale oo la akhriyo, haddii aad tahay qof full time shaqeeyo habeenkii ama mataqaanaa maalintii qof shaqeeya haddaad tahay, the best thing waxaa weeye subaxii ugu hore iyo habeenkii intaada seexan kahor inaad akhriso. inaad isku daydo bishii inaad 2 buug mataqaanaa ka dhex baxdo. waana adag tahay beginning ugu hore, aad bay u adag tahay, laakiin waxaa weeye haddii aadan khasbin nafta oo aadan isku dayin inaad akhriso, waxaa weeye way kugu adkaanaysaa inaad mataqaanaa aad fahanto. midda ugu dambeyso oo maaragtay iyadana mataqaanaa runtii aad ku anfacayso waxaa weeye waa reminder, routine and reward. waa inaad haysato meel wax ku xasuusiyo, waa inaad haysato maanta inaad buug inaad akhrin lahayd, waa inaad haysato. waxaa laga yaabaa inaad isleedahay mataqaanaa waa xasuus aniga waxa uma baahni, laakiin really believe me waa u baahan tahay wax ku xasuusiyo. ama guriga qolka aad seexata aad ku qorato, ama miiska aad mataqaanaa fadhido ee computerkaada iyo alaabta ku taalo aad saarato, ama meesha aad ka shaqeyso sidee rabta ahaato, laakiin waa inay jiraan wax ku dhahayo maanta buuggii akhri, buuggii maanta meeshuu kuu maraya kasii wad, waa inay jirtaa. marka routine waa inaad ka dhigataa, waa inaad ka boodin maalmaha aadan dhihin maanta nasanaya, maanta faraha ka qaadaya. numberka yareeso, ku bilow inaad mataqaanaa 5 page maalintii akhriso, 10 page inaad akhriso, 20 inaad akhriso, depending adiga kugu xiran tahay. laakiin you have to start reading because the more you read the better you mataqaanaa you improve. maaragtay maskaxdaadii ayaa ballaarinaysaa. maskaxdaada markaa ballaariso waxaa tahay qof mataqaanaa jirkaadii iyo wixii sidii weeyaan, laakiin dimensionka maskaxda ayaa kala baxayo. maskaxdii baa ballaaranayso. markay maskaxdii ballaarato dan maxaa kusoo xigo? qofkii waxbuu fahmayaa, more baad fahmaysaa, more baa kaa dhadhacayso, more tolerant baa noqonaysaa, qof caadiya oo dadka la dhaqmi kara, oo wax walba fahansan, oo wax walba la socdo. waxaas oo dhan waxa kuu fududeyn kara waa akhrinta weeyaan, kaliya akhrinta weeyaan. marka isku day inaad mataqaanaa akhriso. insha allahu tacaala 9 qayb kale ee hartay ma aragtay barnaamijkan success habits aan ugu magac daray, iyagana la soco hadduu ilaahay yiraahdo. khayr baan kuu rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.